golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta dooran doona 5 xubnood oo ka tirsan kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. kuraasta maanta lagu tartamaya ayaa madaxiloodkoodu waxa uu yahay 2021 ilaa 2022 waana mid wareegu ay ku tartamaan dalalka caalamka sanad waliba. 5 kursi ee lagu tartamayo ayaa mid kamid ah waxa loolan adag uu ku dhaxmari doona dawladaha Djibouti iyo Kenya, halka dalalka Canada, Ireland iyo Norway ay ku tartami doonaan 2 kamid ah kuraasta maanta la dooranayo. wadamada Mexico iyo Hindiya ayaa ah labada dal ee aan wajihi doonin tartan adag maadaama qaaradahooda ay kaligood ka sharaxan yihiin. loolanka ugu adag ee doorashada kursiga maanta waxa uu noqon doonaa kursiga u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Djibouti oo loola ballaaran u galay sidii midka kale ay uga guuleysan lahayd, iyadoo labada dal intii ololaha ay ku jireen ay hadallo adag isku weydaarsadeen dhinaca warbaahinta. dawladda Kenya ayaa sanadkii 2019 heshay aqlabiyadda xubnaha ka socda midowga Afrika, waxaana rajo badan ay ka qabtaa inay hesho kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay, halka Djibouti ay ololo ka sameysay dalalka Islaamka iyo Jaamacadda Carabta si ay u hesho codadka dalalkaasi. macadka daraasaadka amniga ee Addis Ababa ayaa sheegay in Djibouti ay haysato taageerada dalalka Afrika ee Faransiiska ku hadla iyo wadanka Shiinaha, kuwaas oo gadaal ka riixaya loolanka Djibouti ay ugu jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sidoo kale gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen dalalka Islaamka ayaa ka codsaday dalalka xubnaha ka ah ururkaasi inay u codeeyaan wadanka Djibouti. dhanka kale Kenya ayaa haysata qaar ka mid ah taageerada dalalka midowga Yurub iyo wadanka Mareykanka, sida uu qabo Martin Olo oo ah khabiir ka faalooda arrimaha Afrika barana ka Jaamacadda Nairobi ee wadanka Kenya. labada dal ee Djibouti iyo Kenya ayaa midkii ku guuleystay kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu bedeli doonaa dalka Koonfur Afrika oo waqtigu ka sii dhamaanayo. Sida Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi.